wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboos oo socdaalkiisa uu ku wehelinayo agaasimaha uqaasha iyo nabadgelyada Maxamed Cali ayaa maanta si diiran lagu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergabo waxaana wafdiga meel 15 kiiloomitir kaga aadan dhinaca galbeedka kaga hortagay mas'uuliyiinta maamulka heer gobol heer degmo madaxda dhaqanka waxgaradka iyo dhammaan shaqaalaha dawladda hoose أنا وفدت مركي قلتها سيسوق قارين أي من ميدو وقع عن قاعدين مسؤولين تايا مدح دقمتك هالكاسي كسر دوين يدو وفدتنا يوسف بقوشي دين عاية مقالة تاسو إلا سومرية شرعية دواوين مقالة يدو هالكاس نسيوين لوغة دريمي أي ماشيها وفدتنا وهقامين يو وسيرك وزارة دارمها قدها دكتور محمد عبدي كبوسي waxaana wafdidu ay ku biyashubmeen xarunta qasriga martida ee magaalada Ceergabo iyadoo halkaasna islaan ay kaga qaateen cutub ka tirsan ciidanka bilayska waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Cabdi Hurre ayaa isagu uu sheegay inay ku soo dhaweynayaan ka maamul ahaan iyo shacabka ku dhaqan gobolka Sanaag wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaana isaguna halkaas hadallo kooban oo mahadcelina ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa isagu u mahadceliyay dadkii sida diiran ugu soo dhaweeyay gudaha magaalada Ceergabo waxaana wasiirku ka warramay ujeedada socdaalkiisana uu ku tilmaamay mid ugu kurgalayo xaaladda guud ee gobolka taasoo uu sheegay haddii aan lahayd dhinacyada abaaraha iyo dhinacyada ammaanka taasoo uu sheegay inuu gobolka Sanaag uu yahay gobolka ugu bariya gobolada Soomaaliland isla markaana uu yahay meel xasaasi ah sheegaya safarkaygan waa safar kormeer waa safar hawleed oo aan ugu talagalay madaxweynuhuna uu igu soo diray inaan imaado gobolada dalka oo aan u soo kuurgalo xaaladda dadku ku nool yahay xaaladda maamul baahida taal soo dhageysano wixii la qaban karana marka la qabto wixii kale ee qorshaana aan isaga kula noqdo iyo qaranka intii kale waxaan markaa si dhaqso ah u bilaabanayna hawsheeni mar labaad waxaan duceynayaa Ilaahay gobolkana ka dhigo gobol barwaaqo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa socdaalkiisa ka soo bilaabay degmada Garadag taasoo ay la kulmeen mas'uuliyiinta maamulka golaha deegaanka iyo waxgaradka ku dhaqan degmadaasi waxaana ka wada hadleen sidii xaaladda guud ee gobolka isla markaana degmada Garadag iyadoo halkaasna uga soo gudbay degmada Ceelfeyn waxaana sidoo kale halkaas uu kula kulmay mas'uuliyiinta maamulka degmada iyo waxgaradka ku dhaqan degmadaasi واتن يمركي ugu horeysay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo socdaal uu ku yimaado tan iyo intii xukuumadda cusub ay xilka ay la wareegtay Ali Aadan Daahir iyo Nuur Jir